السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال يا مروين مال والبو أدافع عالم كان نقل جان قاديسان هالكني WSTV waxaad ku soo dhawaataan wararkay imkana waxa kamida qaar kamida aqoonta deegaanka ayaa si siman iyo baqtiyaar nasiib ah loogu qaybiyay faa'iidadii ay sanadkan soo xareeyeen shirkadaha ku buhoobay aqoonta deegaanka wafdi aad u ballaaran uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo ku wajahan shirka raaso ayaa xadhiga ka jiray qaar kamid ah mashaariicaha horumarineed ee laga hirgeliyay magaalada Dhagaxbuur qodobada kale dheehan doontaan waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Xile Mariam Desalegn ayaa sheegay in Arwa Pan Africa University ay noqon doonto mid udub dhaxaad u noqota taariikhda lama ilaawaanka ee Arwa qodobadaas iyo kuwa kale ayaad wararka ku daawan doontaan markale kulanti wanaagsan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed ay idin la socodsiinaya qaar kamid ah aqoonta deegaanka ayaa si siman iyo baqtiyaar nasiib ah loogu qaybiyay faa'iidadii ay sanadkan soo xareeyeen shirkadaha ku buhoobay aqoonta deegaanka warbixin umuurtaas ku saabsan farax bade ayaa faahfaahinaya waxaa jirta in xukuumadda deegaanku ay hayso aqoon tiro badan oo waalidiintood nabadiid ku laayay iyagoo difaacaya isla markaana sugaya amniga shacabka deegaanka iyo dalka iyo qaar ku aqoontimoobe oo waalidiintood ku waayay nidaamka dawliga ah ay ku jireen awgi haddaba xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo taa ka duulaysa si ay kor ugu qaado nolosha aqoonta deegaanka ayaa waxay carruurta ay waalidkood nabadiid ku laayeen u sameysay hooy ay ku daryeesho oo leh waxbarasho heer sare ah taasoo keentay in arday tiro badan oo aqoon ah oo ka qalin jabiyay dugsiyada hooyga aqoonta ay maanta wax ka bartaan jaamacadaha kala duwan ee dalkeena Itoobiya geeska kale xukuumadda deegaanka ayaa hirgelisay shirkadaha aqoon ah oo iskood uga shaqeysta dhinacyada wax soo saarka beeraha xanaaneynta xoolaha iyo ganacsiga kuwaas oo faa'iidada ay sanadkiiba soo saaraan hal mar lagu caawiyo aqoonta kala duwan ee deegaanka haddaba waxaa si siman iyo si baqtiyaar nasiib madasha kulamada ee qaryaandhoodaan loogu qaybiyay lacaga aad u badan 1336 aqoon ah lacagtaas oo ka timid ay faa'iidada ay soo saareen sanadkan shirkadaha ku buhoobay aqoonta deegaanka ugu dambeynna lacagaha ay baqtiyaar nasiibka ku qaadanayaan aqoontu ayaa isugu jirta 50,000 oo bir 200,000 oo bir 500,000 oo bir 750,000 oo bir 1 milyan oo bir ilaa 3 milyan oo bir aniga waxa la dhahaa Leila Faarax baa la dhahaa degmada Qobbina waan ka yimid qabalaha qarariina waanahay 3 milyan ku guuleystay wafdi aad u ballaaran uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo ku wajahan shirka raaso ayaa xadhiga ka jiray qaar kamid ah mashaariicaha horumarineed ee laga hirgeliyay magaalada Dhagaxbuur sida warbixintan inoogu sheegayo Cabdi Cumar wafdi ballaaran uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa u ambabaxay dhinaca degmada raaso ee gobolka Hafdheer waxaana wafdigu uu sii marayaa gobolada Jarar Qoraxay iyo Shabeelle iyadoo markii wafdigu ka ambabaxay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjigan uu qaaday jidka laamida waxaana uu sii maray magaalada Qabar Bayax degmada Araarso iyo tuulooyinka ku teedsan jidka laamida iyadoo bulshaduna ay si diiran soo dhaweynaysa wafdiga isla markaana madaxweynaha iyo bulshadu is xog wareysanayeen waxaana wafdigu markii uu gaaray xarunta gobolka Jarar ee magaalada Dhagaxbuur waxaana halkaas madaxweyne cabdi maxamuud cumar xariga ka jiray mashaariic fara badan oo laga hirgeliyay magaalada Dhagaxbuur oo ay kamid ahaayeen dugsiga sare ee heerka darajada koobaad iyo madasha shirarka ee gobolka Jarar waxaana dugsiga sare ee heerka darajada koobaad iyo madasha shirarkaba loo dhisay heer tayadoodu sareyso inta kadib madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa kulan la qaatay odayaal dhaqameedka waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada maamulka magaalada Dhagaxbuur ee kaga wada hadlayeen horumarka iyo nabadgelyada waxaana madaxweyne cabdi maxamuud cumar uu tilmaamay in mashaariicaha socda la dadajin doono ay kamid yihiin leydhka iyo biyagelinta magaalada Dhagaxbuur isagoo sidoo kale madaxweynuhu bulshada u ballan qaaday in mashaariic kalena la bilaabi doono si dhaqsaana loo dhameystiri doono dhankooda qaar kamid ah bulshadii ka soo qayb gashay kulankan ee ku dhaqan magaalada Dhagaxbuur ayaa iyaguna tilmaamay inay diyaar u yihiin sida uga qayb qaadan lahaayeen horumarka qaybihiisa kala duwan ee ka socda magaalada Dhagaxbuur inta kadib wafdiga ayaa u jarmaaday dhinaca Qabri Dahar isagoona qaaday jidka laamida wuxuuna sii maray degmooyinka ay kamid yihiin Burqod Sheegoosh waxaana wafdigu caawa ku dheelmaday magaalada Qabri Dahar iyadoona berri wafdiga uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamuud cumar uu xadhiga halkaasi kaga jari doono jaamacadda Qabri Dahar oo waqti xaadirkan waxbarashadu si habsami leh ay uga socoto iyo mashaariic kala duwan sida warbixintan uu noogu soo diray wariye Faarax Cabdi oo wafdiga noola socda waxaa ka qabsoomay degmada Shiniile ee gobolka City kulan lagu dardargelinayay fulinta iyo meelmarinta qorshaha dakhli ee degmada Shiniile ee sanad miisaaniyadkan 2010 warbixin umuurtaas ku saabsan Cadaalad Cabdi Fataax ayaa soo diray
kulan wacyigelin oo lagu sii dardargelinayay bixinta dakhliga ayaa ka qabsoomay hoolka shirarka ee degmada Shinile ee gobolka City. kulankan oo diiradda lagu saarayay bixinta dakhliga iyo faa'iidada uu leeyahay ayaa waxaa ka soo qayb maamulka degmada, maamulada qabaleeyada iyo ganacsatada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Shinile. waxaana kulankani hogaaminayay kusimaha gudoomiyaha iyo maareeyaha dakhliga degmada Shinile. dakhligu waa udub dhaxaadka howlaha horumarneed waxaana lagu qabtaa baahida kala duwan ee bulshada. muwaadin kastana waxa uu xaq u leeyahay inuu bixiyo dakhliga kadibna helo adeeg bixin kala duwan. haddaba waxa ugu horreyntii kulankani furay kusimaha gudoomiyaha degmada ahna madaxabseedka biyaha mudane Deeq Cumar Cabdullaahi. in hogaaminta degmada iyo qabaleeyada hogaamintoodii iyo oday dhaqameedkii ma garanaysaa guud ahaanba degmada iyo qabaleeyada inaan ka wada qayb qaadano sidii dakhligeena koran ugu qaadi lahayn weeyaan ujeedadu. tan soo nahay dakhligu waa horumarkeena weey. adeegyada horumarka kala duwan waxa lagu fulinayo waa dakhliga. marka in dakhliga intaan u wada guntano waxay ahayday qof walba doorka kaga aadan uu ka qaato qabale walba ilaaha dakhli ee ka jira si fiican looga shaqeeyo. wacyigelinta waa tii sanad kasta markasta la qabanayay. wacyigelintuna waa ku saabsan nidaamka iyo qorshaha dakhliga in la iska wacyigeliyo dhammaan mas'uulku meel kasta oo joogo xubinka mas'uulka ka ah inuu bulshada markasta ku baraarujiyo in dakhligu yahay horumarkeena. dhaqaalaha hadaan la haysan ereyga dakhli rukunada uu ku taagan yahay waxa weeyaan waa dhaqaale, amnigii, kobcintii, horumarkii, laydhkii iyo isgaarsiintii weeyaan. marka hore haddaan degmo ama deegaan ayna lahayn wax dakhliya haba yaraatee wax u suuro geli kara ma jiro. dhaqaale in la helaa wax walba ka horeeya. bulshadu markaa si dakhliga waxaa looga wacyigelinayaa uu wixii ku waajibay wixii kale inuu kala saxo oo la fahansiiyo oo fahan dheer iyo dakhliga ka haysto. dhankoodana qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii kulankan ayaa sheegay in dakhligu yahay naftaada ka qaado naftaada u qaad, kuna faraxsan yihiin kulankan isla markaasina ay ka go'an tahay inay bixiyaan dakhliga maadaama loogu qabanayo danta horumarneed ee shacabka. waxaan maanta halkan ku qaadanaynay hoolka degmada Shinile tababar wacyigelin ah oo kor loogu qaadayo garaadka bulshada ku dhaqan degmada ee ku aadan canshuur bixinta. hadda sidaan wada ogsoonahay kolley canshuurtu waxa weeye naftaada ka qaado naftaada u qaad. kaabayaasha horumarineed ay dawladdu fulinaysana waxa lagu fulinayo waxa weeye waa dakhliga iyo canshuurta laga ururiyo shacab weynaha. kolka insha Allah taala faa'iidooyin badan bay leedahay. ugu dambeynna waxaa halkaasi shahaado sharaf lagu abaalmariyay qaar ka mid ah xubnayaashii sida fiican sanadii la soo dhaafay 2009 oo ka qayb qaatay bixinta dakhliga. Dalal Abtaasha Maxamed telefishinka caalamiga ESTV hoolka shirarka ee degmada Shinile ee gobolka City. wali akhiir halka warkaas idin kaga iimaanayana waa ESTV. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Xale Mariam Desalegn ayaa sheegay in Arua Ban Africa University ay noqon doonto mid udub dhaxaad u noqota taariikhda lama ilaawaanka ah ee Arua. warbixin umuurtaas ku saabsan Ibrahim Cabdi Muuse ayaa faahfaahinaya. dalkeena Itoobiya ayaa waxa ka socda dadaalo horumarineed oo lagu kobcinayo geedi socodka dhaqan-dhaqaale ee dalka. waxaana hariya habeenba dalka ka socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo lagu sii amba qaadayo taabagelinta horumarka dalka. waxaana waqti xaadirkan dalka ka socda hirgelinta jaamacad lagu magacaabo Arua Ban Africa. waxaana aad loogu rajo weyn yahay in ay Arua Ban Africa University kaalin lixaad ka qaadan doonto taariikhihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray, gaar ahaan taariikhdii xasuusta lahayd ee Arua. haddaba ra'iisul wasaaraha qaranka mudane Xale Mariam Desalegn oo ka hadlay Arua Ban Africa University ayaa sheegay in jaamacadan ay noqon doonto mid hirgelisa qaabkii loo soo bandhigi lahaa taariikhda caanka ah ee ay leeyihiin dadka madow iyo waliba sidii daraasaad dhab ah looga samayn lahaa nidaamyadii kala duwanaa ee ay soo mareen dadka madow ee Afrikaanka ah, isla markaana la iskugu xidhi lahaa dhammaanba dadka reer Afrika. sidoo kale waxa uu ra'iisul wasaare Xale Mariam Desalegn sheegay in jaamacadani Ban Africa ay noqon doonto mid udub dhaxaad u noqota taariikhdii lama ilaawaanka ahayd ee Arua ee uu soo maray dalkeena Itoobiya, isla markaana wadamada kale ee Afrika ay kaga faa'iideysan doonaan taariikhda dhaxalgalka ah ee Arua. waxa kale uu ra'iisul wasaaruhu carabka ku dhuftay in gudaha jaamacadan laga dhisi doono madxafyo kala duwan oo laga heli karo qalabkii kala duwanaa ee la isticmaalay waqtigii lagu jiray halgankii Arua iyo waliba muuqaalo ka turjumaya taariikhdii dheereed ee guushii Arua. geesta kale waxa ay jaamacadani dhidibada u taagi doontaa tubtii loo mari lahaa taariikhdii saxda ahayd ee Arua, taasi oo la raba inuu jiilba jiilka ka dambeeya ku wareejiyo iyo waliba qaabkii ay dalxiisayaasha caalamku uga bogan lahaayeen taariikhdaasi lama ilaawaan
caanka ah ee Arua. ugu dambeyntiina waxa uu ra'iisul wasaare Hailemariam Desalegn waa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ku baaqay in si hagar la'aan ah looga wada qayb qaato taabagelinta dhismaha jaamacadaasi. akhyaarta qiimo iyo qadarinba mudan ee hawada nagala xidhiidho intaa waxayna uga eeg warkii oo aad kala socoteen ESTV tan iyo kulantadeena dambe aniga akhyaarta kala qayb gashay tibinta warkan isku duubni waxaan idinku dhaafaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.